بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وعن دقيقتي كل سو دواada barnaamijkii maan hadal wuxuu toddobaadkan idin ka imanaya xarunta Daljir ee magaalada Gaalkaayo. waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee Daljir ay ku leedahay Soomaaliya. cidii barnaamijkan u dhaafana waxa ay mar kale kaga bogan karayaan website-kayga radio.daljir.com. anigu Jamaal Faarax Xadan ayaana barnaamijka idin soo siinaya. ما بايرو ولا هولو ما باردو نكودا هذه ما تستنى ولا أبد لما هشيو نكودا هذه ما تستنى ولا أبد لما هشيو ولا وراي نفسي حركو يا هاي كما هذا ولا وراي نفسي حركو يا هاي كما هذا ولا يوبا toddobaadii ugu dambeeyay magaalada madaxda gobolka Mudug ee Gaalkaayo waxaa ka soconayay dagaallo dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen isla markaasna u dhaxeeya dawladda Puntland iyo maamulka Galmudug. dagaaladan oo muddo 2 toddobaad la soconayay ayaan ilaa iyo hadda wax xal ah laga gaarin. waana amuurta barnaamijka maan hadal maanta uu ku saabsan yahay. waxaana barnaamijka iigu martay oo ka qayb galaya wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo wasiirka wasaaradda amniga ee dawlad goboleedka Galmudug mudane Ismaan Ciise Nuur oo loo yaqaano Taarduleed. ugu horeyntiina waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan weydiiyo wasiirka amniga ee Galmudug. wasiir maxaa soo celinaya dagaalada magaalada Gaalkaayo ka socda? waa ma san tahay waxaan rabaa ku soo dagaalada waxaan xamsanahay dagaalka Soomaaliya maanta oo baana dad yar lagu soo jeedo dagaalkaas Gaalkaayo ka jira waxaa sabab u ah dawladda Puntland waxayna sabab u tahay inaysan xaqiiqa dawladooyin diyaarna u ahayn in laga wada hadlo waxyaabaha ka jira Mudug ama Gaalkaayo si dhaba sida lajligeed haddaan siyaasiya loo hadlin waxyaabaha jirana lagu istaagin lana xallin dagaalku waxa weeye ma dhamaanayo. waxaad og tahay in Gaalkaayo November dagaal ka dhacay dagaalkaasina uu ahaa dagaal socday dhowr cisho meesha caalamka iyo dowladaha federaalka Soomaaliya iyo dowladda kusoo baxeen qodobada looga heshiiyana ay u dambeysay in la wada hadlo. arrintaasna ay ka soco weysay dhanka Puntland. aan aaminsanahay waxyaabahaas waxyaabo kaloo fara badan ayaa sal u ah dagaal ka socda Gaalkaayo. waayahay wasiirka hawlaha guud ee Puntland Cabdirashiid isla su'aashaas maxaa soo celceliyay dagaalada ka socda gobolka Mudug gaar ahaan Gaalkaayo? bismillahi raxmaani raxiim. waa salaamaya wasiirka iyo Cabdalla. dagaalka Gaalkaayo ka dani waayey waxaa soo celcelinaya waxa Gaalkaayo ka jira iyo xaqiiqda iyo maamulka Galmudug sidii u fakarayo ayaa mushkilad ku ah Gaalkaayo iyo gobolkana. waayo Galmudug dastuurkeeday ku qoratay ilaa Puntland leena beediyahana maalin walba waa la taagan yihiin. arrintaasina arrin ama nabad lagu raadinayo ama arrin maamul mas-uuliyadi ah ama arrin xaqiiqa oo jirta ma aha. marka arrinta meesha laga doonayo ma jirto. dagaalku wuu joogsanaya. dadku waa deris dhul buuna kala leeyahay. dhul buu kala degan yahay. xuduuduu leeyahay. waa la yaqaan. walaalkay Cusmaan iyo dawladdiisana arrin shacabka oran maayo. arrintaa haddayan ogeyna sheegashada ilaa Burtile iyo dhul baa naga maqan
وأرين برينا كتر أسوأ فرانا كذا مدرسين ما بنشوف يكون كيسنا حوض يحارب بيوت المنطقة الشركة صدق سنة دلال كنت في الصومال دان بين شوك نفسك اللجك ولا الكي وما السيئة هاي هلا ولا هم لكن حال ولا هم حافظ إذا كان لي فيسا كان حدود من كليان يمانا خد عذارين من جهنم اللي يقال وحين شهادة وحين يقول لي بالله أنك لا حقيقة جدا وعوية حين الكاس أن محمد كسر محمد كسر الجنة بس شو ما نبيج ولا ما هلا إذا ما راح يقول كسر ممكن بس واحد يذكر حدود إنسانية كانوا حافظ من الدنيا هاي بيج ولا مرة بنو بغاله ولا مرة بنو كل كمرة بنو والكيان فيه كانوا حدود سلاح وصل حوالي وعين هذا أنا شيء إلا ولا اللي الناس أجوزين هذا وحدودات فيه وما هيشتو كبح حاصلها الديان كهذا الحين كانت حبب وانا ما أصل وياي وزير اسمان هدي وزيرك هؤلاء قدولية أنه دجال لما ربنا نلك قلم ذقنا الدولان كمنه لكن أيها نقصه الضرك هذا يصير أنا الدولان نقصها ما دقيقة سامر كان أرنت سأشتو وهلا ما صنت أرتا بعد الفيد منفيذة باقي هاي وعلى طيوان ما لهم بيالك مدن باودائي وعاود قلم ذقنا وقالت وعود على الحلقة أجازي الأولى إلا الله نكون رئيسا إلى الحدود والديان يبدأ فيه قبل الله الحكيم فيها وعنا إتحدثا أعتقد أنه أبغى الرئيس لماذا نأسيبنا ونرمعين قد يبقى على الكعيان عن كربنا وناد لما يبدلوا شعب كامي لا يجيز ذا وأصلا ما أنتهى الإنسان وصدق غالبا ورحمنا وأنا أمن إن الجملة يقول عن كلام بلنا لا كذا ما تجارك عليه كتبت وهو شعب الكساء إن الجملة عن كلام بلنا هو تكتب رجله هاي إذا يقول فيها يعني قبيلات على يفيد دوان وأن دين على إجلاء حاصل عن بايو وأنا وضعون له يقول على تهالل وهجرة على غيرها له قد يبقى الكعيان كل ما أنا يسوع تعاوني والكي نستفيد عامات كتير كثير معه إن كل العالم العالمية وإحنا نقطع يقين فيه فقالوا في الصوماليات دخلت بالوضع الصوماليات لا أمكن تدريجها أي جملة وقع أوقات فرصي والآن جنها أي كان صحيحين بركة العالمية يعني ورسل له الصوماليات قال كعور الصوماليات الشهور كجل مدينة وعقورا يعجب فيها وحرية أنا وغريات يعني هاي الشهور كجل مدينة وعقورا وجديد بالمدينة وابنيان ولا فكرا لا تعرف السفيرية عارة مثلا ساعتين ما هو ولا على هذا المسلمين لا تبيت تميس ولا شعب المسلمين التسجيل من الكلا التسجيل من الطاقة التسجيل بان هاي تعانى هاي دولة جديا شعب سيدنا من مثله يحاول يحوفوا بربعين أنه عن المسلمين كما هاي شعب كالدلمي الدلمي هذا اللغتنا وكل كلمة أنت في عمل كثير منها أبيت أحاس هذا وهذا اللي غيره وحنسين ولا هنا بتاعنا صعب يعني ده كان أيوة ما كده ويا إن أدوم مثلا إن وزير عبد الرشيد واحد قلب يجا أيها وير نو دروس نو هيا هراء دور شر إذا ما أسا كلاوات شيء سنة واحد هذا إن يجا أو حلفاء أو إذا ما دي حتى الدولة الفدرال كأيو كحكلا أيو أتلماتين يقلب دروس وطايا نصور رجع إن وأنا مقصد وزير تارو لازم يكسو وجهه هذا كلام حاسس عدنا سامر إن الرباح سجل مدو أيضا كود وير راس وين السلام يا مرلا اسمان هذين لما تلاقيني ولا كشف عيني جبت عمي بالجلد لما أنا حكومي وياش ما حكومات الله كلا قال الدنيا يعني كرر كرا وأنا لكن هذول ليج أو شجار يدق أمة هذول شجار مسائل كذب قرن ومدة شوية ما تحريد عنها حببكم معلومة بجانا كذب لما قرن محافظة يجوا جوا ما دام إذا ما نتعلم الفكرة وضرب كلامات اسمعوا إيه الحاجات ولا كل ولا الجلي وأنا مثلا اسمه الجغرافي كان شنو الوقت ده شيء بس كلام حبب المسكرات والآن الله كمان يا رب يدينا يا ناس كذا قال يهدوش الجهاد
laakiin hadduusan aqoon u lahayn inuu yidhahdo waa ka xaajoonaya nabaddiiskii qayb ka mudow saasaan u arkaa ko kan saddexaad waxaan nidhi dadka dad baa ku wada nool oo deegaana 80 sano 90 waa la helayaa oo jooga guri iyo geedgeed iyo dariiq baa loo yaqaanaa iyo inta ceel laga cabo ayagu ha wada hadlaan baa mirwaankayna ka usan taarikaaga soo dir ha ka hadlaan waxa la isku hayo waa dhul waxa la isku hayaa iyo deegaan nin walba meeshuu lahaana waa yaqaan kuwii yiqiinay oo labada geesooda isu daynaynaa kuwaaga kaan weliga waana qoran yihiin liiskayda saaran yihiin waxa uu ku diiday leeyahay anaa ka hadlaya asagoo aan waxa ra'yiga ka haysan nabad baa ku imaanaysa mika hadalkaasi nabaddiid iyo hor istaag waa maashan waya taarulad maadaama cabdishide uu saa hadda u hadlayo adigu ma aaminsan tahay waxa la isku hayaa inay dhul iyo deegaan tahay mise waxaad aaminsan tahay in siyaasad kale la isku hayo maxaad aaminsan tahay horta waa maasan tahay waxaan yidhi dadkan dariskaahi muddo dheer ay degnaayeen dadka beeruliyahina xilli kasta waxbaa ka dhacdhaca dhulna ma kala qabsadaan deegaanna ma kala qeexdaan ani waxaan aaminsana waxa la isku hayaa inay yihiin siyaasad hal magaalo laba maamulaya degan ay u baahan yihiin inay salka u dhigaan xaqiiqadana ka wada hadlaan gaalkacyada inaan gurguri waxa weeye dee adiga hadeeniyo haad laga soo raacaya ma jira gaalkacyo aqaanaa midbaan tegey haddana siri baan ka ahay maalinta tiri maanta ku heshiinayeen kanal cabdillahi iyo kanal xaydiis gaalkacyo tegey hadda siri aan rabaa fikirka ayaa aaminsan yihin oo ah gaalkacyo hebel ma yaqaano yaan waqti badan iskaga dhigin soomaaliya nimaanta ilaahay qaatay wasiirka ka yimaada ceel dheeraa gaalkacyo ka taynaaya haddaan rabaan idiin sheegay waan kugu celinaa cabdisiir horna kugu sheegay wasiirka ka yimaada ceel dheera gaalkacyo ka taynaaya inaad la hor fadhiisato la hoosana ku qasban tahay wax adiga laga baraya maaha bal ogow ka bari ka yimaadaan la fadhiisanaynaa gaalkacyo waan laaleenaa marka wasiir buyaana inaan mas-uuliyadeena ka cararnana xal lagu gaari maayo shacabkiina waxaa mas-uuliyadda u haysaan ku matala nabadana way qaada inuu kaa qalan leeyahay oyaal dhaqan meelay ka hadlaan maanta matalka xaaladdu xarbad baa socota xabaddana mas-uuliyadda dawladdaa sooji karta mas-uuliyadda dawladda marka joogtana hadalka la wada fadhiisana war maxaa halaha ku xigta anigu taasaa rabaa inaan sheego horna waan u sheegana iyadaan taaganahay mana ahan waxaan ka tanaasulaynin waa maasantaha waayo isla su-aashaas cabdishiid baan weydiinaya cabdishiid maxaad aaminsan tahay ma in arrimo siyaasadeed la isku hayo oo puntland iyo galmudug ku dagaalamayaan mise in arrimo dhul duruusi la isku hayo maxaad aaminsan tahay deegaan la isku hayo siyaasadda gashay in reer guryahood la weeraro oo dal laga raato horta siyaasad laga yiraa waana wax nasiib daraa waana fakar aada u hooseeya mana shaqaynayo daraad waxaa hadlay madaxweynihii soomaaliya waad maqlayseen idaacaduhu ka sugaayo wuxuu yidhi galmudug ka hor gaalkacyo wax jira maaha haddii sidaa xaqiiqda looga wada fadhiya oo ninkii soo ordaana uu leeyahay gaalkacyo ka baan ku ridanaya haddee dagaal iyo shidaa loo diyaar garoobay nin waliba hadda wuxuu shidada ka dheefayo berribu caddayn doona ilaahbuu la hortelayaaye waxaan leenahay cid kastoo fidlo wada faa'iidaday helaysaay horta ha ku soo dhawaato fidlo hadday doonayaan waxaa soo haray riyaalatiga gaalkacyo iyo gobolkan nabadiisa waxaan rabnaa inaan ka bilowno haddaan nahay puntland meesha ugu hooseyso grass peace baan rabnaa anagu salka inay kasoo bilaaban baan rabnaa laakiin dooni mayno ama aandeer ha kasoo ordo ama dhuusamareer ha kasoo ordo maalin walba wasiiraan xog iyo xaal hayn inuu dadka iyaga dab gasho inuu isku laayo ma danaynayo waxaan leeyahay ninka layaa cismaan walaal dalka haddaad kala taqaani meeshan xabadda kullisay 24 oo jimcihii afraad dhamaaday deegaanna kuma aha dalka kugalheeda ka daa xabad waxa kaa maqan oo aad u xabadaynaysidna ma fahamsii oo noo sheeg haddii kale walaal dadku deegaan buu leeyahay deegaamadooda waxa ka dhexeeya aan ku nabadayno aan u dayno maamulna ugu ahaw wixii intaa ka bedelan wax ama la fahmi karo ama la fasiri karo maaha midda kale cusmaan inuu yidhaahdo aniga nimaan ahayn gaalkacyo nabadeeda kama hadli karo ayaduna arrin ila qurux badan maaha wasiirka waa uga naseexan laha waxaan ogon lahay nabad ka bilaabata gunta hoose oo kor u socota laakiin nabad beena oo hawa ah maalin walba inta laysu soo sheegay 6 bilood dalkayga in la qarxiyo dadka iyaga maafadayada ma aqbalay waxaan sheegaynaa cismaan waa weerar walaalkayga waa weerar anagu difaac baan nahay
jooji weerarka kadaa xabadda aad ku harqinaysa dadka guryihiisa iyo deegaankiisa mas-uuliyad baa ku taabsan magac maamul baad sheeganaysaa waa gobolka kale ismaana weerarkaadu gaalkacyo keliya mada shalaad weeraraysay meesha layaa sunna waraad baad weeraraysay caabud waad kii ka horreysaad waxaad weeraraysay haddii ilaahay kuu sanatay beri yahay maxaa la dhahaa xeraale maantana shalaad weeraraysa ma isweydiiseen maamul baa tihiin galmudug baa la yidhaahdaaye ujeedadii dhismihiisa laga lahaa ma inaad dadka dalkiisa xoog ku qabsataan baa u dhisanteen mise dawlad degan oo horumar ka shaqaynaysa darisyada hagaajinaysa wanaag u jeedadaadkii waxaan ismaha farayaa dib isugu noqda waxa aad wadaan soomaaloo dhan baa isha ku haysa mara nala fiican dalka nabad bayna ku deeqaaye waad maamul ugu hayaanaysaana ka shaqeeya haddaad tan sii wadaan waxaa aan u jeedaa inaan maamulkiina uusan sii jiri doonin saasay umuuqataa waa mahadsan waayahay wasiir cismaan baan weydiinaya wasiir iminka dagaalkan socdo oo gaalkacyo maalin walba xabadda la iskala daalayo oo dadkii ku barakaceen galbeedka xaafadda garsoor buu ka dhacayay halkaas ama deegaankaas maxaad u aqoonsan tahay ma dhul puntland baad u aqoonsan tahay ma dhul galmudug baad u aqoonsan tahay maxaad u aqoonsan tahay waa maasantahay waxaan rabaa bacdashiid waa ninka haskaya waa nin odaya inda bini-aadamka xaqiiqada ka fogaadana xal laguma gaaro bini-aadamkana waxaa la rabaa afkiisa iyo qalbigiisa inay saataxsan yihiin waxaan rabaa ina caddeeyaasaya xabaddan gaalo 10 jeer ku celiyo xabaddan uga moodna 10 jeerna waa sheegnay iyagana waa sheegnay maanta la hadlaynay haddana waa ku celinayna annaga xabad moodno cabdirashiid garsoor hadda kadib sheegayo kabeelahaan taangiga inuu dhacayahay xaasaa lagu duqeynayo waxaan rabaa inaan u sheego hadduu mas-uuliyada ka qaadanayo intaasoo mas-uuliyiinta laga qaato in taangi lagu garaaco dad shacaba iyo barihii bulshada sida waxbarashadii iyo isbitaaladii cabdirashiid halkan rabaa in la weydiiyo waxay dhaxalkeedu imaanayo sababta in adigu dhibaato wado cid u saarisana xal ku iman maayo waa in xaqiiq loo wada hadlo si sareexana arrinta ku sugno waa kow laba waxaa ah maamulka galmudug ama dawladda galmudug dhexdeeda ku jira iyo dhibaatada dhexdeeda taalla xal iyabay kartaa cabdirashiid mas-uulka maahan xeraale wasiiradii gudacaalna mas-uulka maaha waa ognahay inay dee tabar bidayaan ama ay ka shaqaynayaan inay dad gudaha abuuraan galmudugna ay dhibaateeyaan laakin waxba ka gaari maayaan taasna waa u sheeginaa annaga dhexdooda wax ka jira shaqal kuma nihin mucaaraf ka jira shaqal kuma nihin idnadana ka shaqayna marabni annaga qadiyaddan ka hadlayna maanta waa qadiyadda gaalkacyo qadiyadda gaalkacyona waxaan aaminsanahay waa xal loo gaari karo waxba kale ka eemayaan shalay waxay lahaayeen nimanka la puntland shabaab baan laynay shalay waxay lahaayeen dowlad soomaaliya na weeraraysa shalay waxay lahaayeen waxaa na weeraraysa daacis in dee maalin kasta sidii carruurtii loo hadlo oo dad mas-uuliyiin waxaas ka soo baxaan oo iyaga ku qanacsanaadaan raalli ka ahaadaan xaqiiqi waxaa looga haleeyay in shalay odayaasha ma dhihin saaba reesiya shalay odayaasha ma dhihin shabaab baa la duqeeyey shalay odayaasha ma dhihin dowladana weerartay iyagaa dowladana sheeganayo halkan dadka joogahay waa dal la yidhaahdo galmudug waa shacab iyo dowlad xaqiiqdii shacabka reer puntland aada iyo aad waan u amaalinaa waana ku faraxsanahay fikirkooda iyo xaqiiqdiisa ixtiraayaan ay dad yihiin og laakiin dowladda waa dhibaatada wada aan marnaba xal ogolayn ayna shacabka beensanaysa maxay waxay shaqaanaysa qadiyadda gaalkacyana ay ku dhamaan kartaa odayaashii galmudug dadkala gaardinkooda xabadda maanta socotaa dowladdaa rabaa inay arrintaas hafiso mas-uulkeeda inay qaato hankeena sidoo kale dowladdaa rabaa mas-uulkeeda inay qaato waxaa soo haray garsoor walaa waxay tahay hadda isweydiinayni garsoor waa gaalkacay ku taallaa dagaalkii hadda garsoor kala socdaa dagaalkii hadda garsoor ma kala socdo waxay ka socdaa marini iyo dooxaa raajiyaa lagu garaacaya dadkii shacabkii baa la leynayaa umadkii la barsoconayaa garsoor maalintan hadal gaarnaa waxay ka hadlaynaa laakin dagaalka maanta garsoor ma yaalaba meesha hadda ka socdo meesha wadda ka socdo ama baadiya hate ama magaalaha hate ma dhul puntland ba mase waa dhul galmudug maxaad u aqoonsataa su-aasha aan kugu celiyo waa dhul galmudug haye cabdi waa dhul galmudug waa ka jawaabtahay haye cabdirashiid sababiya aan u lahaa cusmaan xoogaal maaha nabadda gaalkacyo kama hadli karo markhaati furkeedii waa qodobka kale adigu garsoor iyo gaalkacyo mas-uul kama ahe mas-uul soomaaliyeed baana haddaad kurceel ku guushay
رالي كان معي ملك أكبر وانا كو أريد وانا كلام هذا خير على الكل والله قال كعيرة هذا كان الكل والله ضمير صومالي منه يملك الله كعبسيه عليه قدوها اسمه هموني إلى المسؤول وأهل فتلا كلي مسؤول صوماليات معنا هاي هل ماشي أتكب بالشيء وأنا كحماي وأنا كتعصيري رالي لكلمي قال كان هلا أنت وبيع والبقى بتوريسان حبضة ما شغل جون تشوفشي كانوا كلامي وقلبي دهان إلين لنا وها صهر اسمه ولا أوركان هبقى dadka walaalaha mas'uulka u tahay wasiirka u tahay hadibaateen waa dhibaataysan habarakeed oo kada nabadda ayaga ka wada hadla udda laakiin hadda maanta meesha DMT horiyaha la dhacay taanjida oo xabada aan ku afuufay waa kul galmudi hadda Soomaaliyeena waa ku maqlaysaa galmudugna waa ku maqlaysaa kuwa wasiirka u tahay kuwa waafaqsanay waa dad yaqaan deegaankooda yaqaan waxaan ku leeyahay ismaaro walaal meesha wax ka doontay wax kaama jiraan waa libooyay dadka kullu bulay nabadda haddaad leedahay garsaxan xabada la dhacayo dooxa inuu galmudug leedahay haddee maba ahanba inta ku hor fadhiista inaan ku yidhaahdo gaalkaciyo maxaa danoo maxaa nabadda ma mudna waxaan doonaynaa in nabadda hoos laga bilaabo odayaasha ha caburinin dadka deegaanka yaqaana caburinin ganacsatada reer mudug ha caburinin والله كان ما هيسيبه وها كيف كان هذا اسمه هقول حبط قبص مش بعيد ده اسمار تاريخهم هوجسي ضبط بالكلام ويا ان تابل اسمان بكره سؤالك ويديو ان dhawaan waxa Puntland ku eedeysay in aad idinku weerar soo qaadeen magaalada Gaalkacyo iyadoo nabada ciidamo dawladda federaalka ka tirsan oo miisal yiraahdo ay caawinayo oo Puntland xitaa qaar bay soo bandhigtay sida ay sheegto ay leedahay waa ciidamadii galmudug rabeen ka dagaalamaan dawladda federaalka deegaanada miyiga sidoo kale dagaal ba ka gashay bay idinku eedeynaysaa ma jiraan arrimaha noocaas ah in aad ku sameyseen ما صدق من ورطة بوقتها بس بلادي إنه ليهم إنه بلا يرتي بلا تجام روح يمد في مكان ما أنا إذا مرنا حرب صار مرنا حرب صار لان ما قال كأيه يمي بالموالد من المهاجرين وهذا من الماهين ويدري كان هذا يمكن أن يكون هذا قال كأيه ويدري عن يسمى العارض يرد جنبي إن هذا قال كأيه كشف اليوم فلا ما يعمل الجاهلين يدخل إيش كيان إذا بدك الدجاج إيش غير يشوف منه الملك يكون مريم وهذا الراعي الرئاسة بقى الجوانيات يعني عند الشيخي ولا بوسة يدك مسلم شاء أنت بدن لكن سياسيا مثلا قالوا عليه وده حرب الكلام ما أنت كنا هنا خبره وعلى كتب بعين وقت بدل الغد إلينا هذا كلام معي العايز ده أخر 5 سنة كور ولوجي فيها هذا الرئاسة حل وعرفت المعين انت والزميل ما انت حضرتك هو اسلام بريء ولا نفع هو اسلام ولا نفع كيف صار هذا الحل لكن ما علمت ان كان يعني رياض انا فهم حاليا فانت وحرمنا انت امان على حاليا ولا هو ارمي فقال لي قال نبدا بالوجود ده صار مخلوق يجي عندك الدنيا وانت ما فاهم الا لما تيجي على طول تيجي بالله ما يكون على طول على ظهره الدولة ولي أن جمع الدولة أن يساعدون ثاني صحة يطلع في من الحقيقة متغلب هو على قدر قال يا مانت طبعا على قدر صوت هو على قدر معاش الله على قدر معاش باي إيش غيرنا يعني أنا من جمع أن سمعنا بيجري أن درسنا بيجري أن بس كان دري بيجري أنا بس في أجندة ما أعرفها النجو وير ما مدين ما نورين ولا ما نورين حبتك أنا ما عندي تجري من لقى في دمان فيها ما عندي استوى فلا أمنيشين ما عندي استوى فلا كذا إيه كذا وعند راس ما بدك تدي العكر غصان هي يعني خلال ساعة لا تجيك حبنا الكرب لا حبض أي كتب كتب هي تعال حين الغرفين حين الغرفين في يعني هذا يوم العالم يوريها عيد اللي قبت ما يورنا عيد السودي بيراد يو كسب حق بيرادين ما ولا ولا كان كسر لا يبقى صار لك كده من المعلم دول في الصوماليات معلم صار في الرسالة عم تدرع وأنا على روح معنا ما أنت على الصومالية الشباب عند بعض الوجود يعني بيستطيعون هاي
dhibaatada u geystay koonfurta baan ka xunahay midda Jubaland ka xunahay midda Soomaaliya oo ka xunahay in walaalahan Puntland maalin kasta iyo carruurta uga hadlaan oo dhahaan shabaab baa inta ku jira iyo shabaab baa fayda shabaab iyaga khiraad uga dacwora iyaga dhibaatada ka shaqeeya aan aaminsannahay jiritaanka Puntland oo ku salaysan yahay jiritaanka arrimaha jiritaanka maalinta dadkani halkan joogaan dameeyaan Puntland maalin ma jirto xaqiiqada ah waxa shabaab ku aadan oo la dagaalamaya Puntland ah oo la rabay inay ku abaal mariso kuna amaanto soo taageerto dalmiga shacabka la caliga ka taagan innaga ariga soo taagan jiritaankeedu oo ku tisaya innaga jiritaankeena in annaga saabnidu dalkaanayaan ay mar information ka jira Mareykanka ay mar doonka ka gaayaan ruuxaas Soomaalina maaha dadnimana maaha bini'aadamina maaha inta isku laabataan dad mas'uuliyiina kiina imaada aqli Soomaali jabnaya iyo aqli bini'aadam kala kala imaada waya waa maasanta wasiir Cabdishiid wuxuu leeyahay wasiirka amniga galmudug Saaruleed annaga baan kaga aadano balaayada hadii aanu halkaas ka bixi lahayn balaayada dhan baa ku soo farbaxsan lahayd idinka hore leeyo arkeen haye اسمه ما فيه خير الله فيك لكن هذا هي اسمه الذي له مصبيها كولا هم الصومالي عالم international community labaduba xogta ka jirta gaalka iyo nabadiidka joogiya kooxaha nabadiidka ismaan waa looga xogreeya haddana ciidamada uu jiida ku hayo maalin walba soo weerarsiinayo ayagoo tiro badan bay ku jiraan lan soo weerar ismaan marka intuu madaxa usoo diray inuu subaxdii la iisoo diray galabtiina uu yidhahdo shabaab ma hayn saasuu aakhiro ugu dhawaanaya bal dib u weydiyo cusman wamaa tanti haye wasiir Cismaan أردني جمعي هذا أنا حوال كاي آلي جامعة أنا هذا تاريخ كذا حسنا عبد الرشيد أروح جامعة إني وصلت غير أي إني جايب الرأيها قبل يصير بالله إن هذا الدرس وجامعة هذا هو أنا جامعة أنا ما مسوي لكن بيالي وسبب اسمي أو سماري أود أو لكون غير إلا هذا الحاجة غيره أنا أقول الله أعرف إن حاول إن نجد بس يا جماعة عنا شباب لما في زمان في أسماء أنا بقول لكم كذي أكثر مرة يكرهين شبابنا هل تغف يعني من زمان ما عند الشباب يعني في ماريا نعد بها لكن واحد يجينا إلهي ينتبه بنت وسيم من كورقلا طبعا كذا أنا قامنا نقدر بالرعاية ما عند الجدال بعد أكثر حديث أنا بدي وقت الصوت وقت في تأثير على شباب اللي هم بعيد أنتي يبربضامتي يوحي برمجتي بانتا يبدأ كسنة وهذا يوشي السنة وإذا والي نوعات تدعى الجوات عم في دراعة إن المعاليك عن شريكة تغيرنا ولا في درع أنا هو تقدر أدبنه أنا أولا هذا وحا عن هاي أنا إسأل منه بس كان مسلمين إنك تعرف تعينا إلا سبع إيمان تسكيلان إن لو رنت خجوين معك تعرف إن سياسيا لسيبتو هذا بيعرض لك فولو هذا بيوزير لسيبتو تعب فينا إذا في هاي حاول ما تكسر بحاي عاد أنا بلعب بجيب جابه كان لي يومان تدخل جراعي حافظوا هذا أنا بيجي ورجلي أسأله جراعي قال الجرسولة تاجد له جراعي وهذا شو شاريها وتدخل جريدي وأنا حافظه صور في يقولون إليه قال صور ري قال يا أسكال عبد الصور بيتاجد له جراعي idinku maxay soo ridayseen dhinaciina shalay waa laga maqlayay laba dhinac rasaas waaweyn ba isku ridayseen qolo walba waxay haystay kala ridaysaa taangiha la rido hoobiyaha la rido balaayo kala idinku maxay ridayseen أنا نتاجد أنا ردي والله ولا laakiin maxaa rideen لكن كل شيء أنا يتاجد أنا ردي هو إنما أنا ردي وعشان ردي لا أو يقولي هاي أو ميديا كتير أو ما في ولا مكان أو ليش كذا وعند كذا وصا قولي كذا والله ويا عبد الشيد ودينا إنه تانجي ردي صارت تقول ردي idinku dhinaciina madaafiic kale miyaa ridayseen أنا أقول أنا في أنا ردي maxaa rideen ilaa shalay dagaal baa socdo wala maqlayo dadku ay sii cararayo hadda xaafadaha ku dhacayeen ما الله يحيي شكلك أن كرقالي سياسته أمنية ولا جسريني وأن جعل لها في حلقة التحدي بلا مدرسة لا إذا ما يشرب لساني حلقة التحدي بلا مدرسة حاجة علوين في حلقة الدنيا نجسي ويا سؤال كان نحن يا مركب
dhawaan waa tii aad bilowdeen inaad khadka telefoon ku wada hadashaan oo tiraadeen nabad baan ka shaqaynaynaa cabdirashiid baan rabaa inaan ku hormaro cabdirashiid qaabkee baa rabtaa nabadda gaalkacyo in looga shaqeeyo loo wada hadlo annaga dawladda puntland baa nala yidhaahdaa shacab iyo dawlad waxaan ku wada shaqaynaa wada tashi is-ixtiraam dhibaatada jirta oon xalkeeda ka wada shaqayno puntlandna sideeda aasaaskeeda waxaa rukumada u dhigay waa dhaqankayaga mushkilad kasta oo timaado dhaqankaa dawladda u adeegsataa oo ka shaqeeya waxaan u aragnaa dadka siyaasad iyo meelheblo baan rabnaa iyo garsoor dooxada korkaa iyo meesha la yidhaahdo jeelka ilaa halkaa ilaa bayra ilaa galbeed waa galmudug iyo riwaayadda annaga ma ku jiro waxaanu dhaqankii ogaa inayan garsoor lahayn oo ogaa inayan ilaa bayra lahayn oo ogaa inayan burkiiba lahayn oo magaalada jooga cismaan ka hormareen dadku ha wada hadlo labada dhaqan isudda baa horta mushkiladu ka socotaa cismaanna wakaale meeshaan xabadda la dhacay galmudug waay waxaa walaalkay ugu dalbanaya u leeyahay igala hadalna waa carradaa hadda aan soo tiriyo ilaa burtila anaa leh waxaa marka wada hadalna ma aha nabadna ma aha mas-uuliyadna ma aha waa wax xaqiiqda kafo kala fogaan doona cismaan kusoo dhawow dalkiina ma rabno deegaankayna ku duuri mayno dalkeena ku duuri mayno walaalaana gambalkaaga ha ku qaado kusoo xadgudbi mayo xabadna kusoo rigi waa soo haray waana haddaa nabadda diida aa ka soo rigi qoriga u weyn baa madaxa kaaga dhufanaya ay nabad diis baa tahay taasna halkaasaan uga tegaya kan saddexaad waxa weeye shabaab miihi oon baanan u arag ismaana afar jeer hadday isdalxiyeen malaha waad ka baqdo hadda inaad oday u tahaa meel walba ku qoran oo la aaminsan yahay marka amaa baqdii kuu geysa haddii xataa hore on lahayde waa dhici karta wixii adayga raalli ka ahow waayahay cismaan cabdirashiid waa caddeeyo puntland waxay tidhi annagu waxaan rabnaa in arrimaha dhaqanka gartaan lagu galo oo odayaasha dhaqanka ee galmudug iyo kuwa puntland ay ishor fadhiistaan oo arrintaa ay dhinadhidiyaan idinka dhinaciina galmudug sidee rabtaa in loo wada hadlo horta waa mahadsan tahay walaa horta horaa laku sheego deerta shacabka deegaan iyo darajadaa lagu ficiyo waxaa lasu imaanmayo kenya loo socdaa iyo loo socdaa iyo waxaas siyaasadaha nimanka milan uu cadeysteen waana sekeyarkitaa ma rabo inaan taas ka hadlo shacabka puntland xaqiiqda way og yihiin maantana dee loo sheegi maayo wax beena taas waa middaas midda labaad waxay tahay odayaasha dhaqanku cid aysan bays u ahayn ama aysan ka bilaaban kuna dhanbaa ma jirto madaxday ammaan bay naga milan yihiin xaqiiqdiina dawlaasanka kala duwanaan tahay ir sharika qaasanayaas waan ku maadsan yihin waxaa soo haray hadda saddex wasiir oo soo magacaabay weligaas iyo saddex wasiir oo soo magacaabay cabdikariim madaxweynaha galmudug ayaan halkaan kuu nimid walaalahayna markaan isku nimid madaxweynihii aan u magacaawinin mas-uuliyadda ka ahayn way ka berbereen innagana iska magacagaya mana qarinayno oo hadduu hadlayo dee odaygu asaga hadalkiisa iskale laakiin halka waxaa ka jira wuxuu u baahayay in siyaasiyan xabaddan lagu seesiyo ilaa la kala qaado intaan eegaa diiday odaygu wuxuu ka hadli karaa meel nabada laba xabadood dhexdeed baale oday kama hadlo waa in xabadda joogsato xabaddana siyaasadda ka digata intaasaa cabdirki diidan yahay dadku ha maqleen adiguna ogow waxaa soo haray xabadda soo dhacaya eeisa cabdirkiin saangigeliy adaa markaasiya inuu qiro yahay inuu saangigeliy dadka isaangi iyo kaare iyo qorowey midna lagama qabsan karo mana ka cararayaan mana ka baqayaan taasna waa midaas aniga haddaan kaa eranahay cabdirkiinow shabaab aga noqon mid lala aqoon looga diro shabaab aga noqon waadarkii midda kale de dadka meel fadhiyo inta guri isku xirta gaariska qanciya meega maa cabdirkii intaa la siinay inta abaala dadkiina xaqiiqada ku jira waya cabdisi waa marsaa cismaan maxaa ku jawaabisaa walaalkay waa mahadsan yahay ismaan waa mahadsan yahay warkiisana hadda soomaaliya waa laga fadhiisanaysa makaydaba waxaan ku hadlay iyo wuxuu ku hadlay ismaan hadda ma oran dagaalna ma soo jiro weerarna sooma qaado laakiin wuxuu yii xabadahan kugu ridaayo kuwa ka waaweynaa dimishow
إذا أنا النقطة اللي كنت أقولها وعروض هذا كسوفي هذا بيئة سوفي لكن النقطة اللي كنت أقولها بيئة اللي كنت أقولها عروض يعني سبع سوا بالغلط كان اسمها سياسية يسألين السياسة المكان قبل ساعتين معلوم بهم قبل مشروع هذا شيء اللي بيسويه كده قبل جنوات عن كابر الجامعية إلى هل حببه الدين ما أنت أجيب كذا وحمق ليسا كان على صوب بلاوي ما أنتنا طلعت بلاوي وحببت حقيقة خمسة مالي والبنوات كذا إلهي كعبسه وذلك هاي كل ما ينشوك حبب ذلك هو حاجوك ولما هو قبل عربي وغاسها ابن أورجرين مسؤوليات ولا حقادم صوبها كهر بالبناني حتى ترى أنا كهل أنا لا يمكن كان حبيت اللي دعاية لا ما أيضا لا يعني وحشون من الأرض ولا ما حقيقة ما يكون شيء أريد كذي هرب ما تخش على الإسماعيلية ولا لو أول كان حتى قارو جد كان حبيت كذا ولا بين النهاية يقرأ لأنه هم يعدين النورية بالرياضة لا بوصاص لا حد مرة يعني أركيسة وتشوفنا اللي تمان الأبوريسي ومن مستقبل كان هركان أنا الجيلان مني حبت فيه الليلة دفاع عنها أنا كان الله ما هو البنات سووا رأيه أقامتي يجرسدي السياسة أي شيء وحوالي ليش الحبت تصير إنساني وأقول قلبي أرنت سالنا وقفنا اسمه واحد كسر بور المخانتي اسمه ولا يعني كنا كرينا تشتري قال كعيه وأكثر النايم كده dadkii wada hadlaha ahalka deegaanka aana waa diyaarinay kan wixii inta ka bedelan wixii aad ka badin weydi haatib waxaana isma waya isman waxaad idinku aaminsantihiin in lagu wada hadlo arrimo siyaasadeed oo qaab dawladeed loo wada hadlo labadiina hadda laba maamul baa ka kala tirsantihiin hadalkiina meesha u marayo iyo saa wada hadlaysaa shacabku waa dhegeysanaya awalna waa linkooda labadiina dhacba ma isleedahay idinkoo saa wada hadlaya baad shacabkii oo maanta roobabku ay ku hayaan baadiyaha oo qorraxdii ay ku hayso dhaxantii ay ku dayso xal waa karayaan maxaa ku diidantii in odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada la isu keeno intay geed wada xaartaan sidii Soomaalida caadada u ahayd inay halka ku gurfayeen arrintooda sida qolada Puntland baa ay qabto horta ma sanad aan rasuulka wasiirku wasiirka ma qiyada wasiirka abdirsiid yarta soo hawsan baa kaalmo ma yaqaan ajri aad raxay wasiirku maahan waa min wasiir hona guud بسياء الإعلانات يقول يكون مسلسلين وأنا أحب اسمعه إبراهيم في بلاد الغامة يسوع الله يضع عليهم وضي حالك أنا عملنا بدأ إن شاء الله ولا ممكن وضي حالك أنا أقول ما بدأ ما في حاجة كرا الدنيا هاي حفظي كاتنا غير الدنيا ساعة في الناس اللي يعلم عملت يلا حفظي في السكون في الخلقات يلا أنا عملت يد الإسكات يلا ولو بسيط يعني بسيط دقائق العيلة جات تستوي بتجيبها هذا يجي ينادي انت عارف كده ولكن الكذب كيف يحاولوا انا رجع فحاول يتعاطى بالله غير كده يجي كده وما يستنى كده ساعه كده وحنا اليومين بلا يعني وانا حافظ في التلاوي وانا يحاول يهم ثلاثين وان تعبت الى القيامه وان كان سياسي باللسان الجاري وعاصرنا عصورة ولا عبدت أقول فيه لما رحمنا كد من الود الحيوان الثاني يعمل كذا مثل كذا بدين كذا نبض بدو رفضيه ما بس كذا الله نبض أن كسر غير محبب جلنا عبدين كذا زمان أبناء عليه ولا لا يعمل هذا هو بعدين هذا هذه ومثلا كذا يقام عملت أسوأ هذا فلا تقولها عظيمة بيد وتيجي أولاد يحبب لي غير أنت واي وزير labadiina waxay ogoshiin in xabadda la joojiyo la wada wasla qarantii laakiin haddii xabaddii adigana aan leedahay la joojiyo cabdishidna leedahay la joojiyo asaas ku raacsantiin yaa wada xabadda markuu soo ridayo subax walba xabadda waxay ku galaan karaa in la joojiyo ولد مثلا إلى بالله العين أنا بالله ما أتكلم هذا فيه عبد الشيد ما أقرأ بس هي عبد الشيد ما أقولش حبض اللي تشوفيه وما لسه صار اللي عبد الشيد ما أقرأينه ما عفنا ما هي كان وانا كان دولة غيره لكن كان غنا هذه صدرنا غنا وإلى دولة العبد كان وإلى دولة ولا إلى كان دولة يا حبض في كذا يا صد على اللغة كذا حبض ولهذا لقروا حبض الجسد ما هاي ما كايا كيف بدأ ولا هلا يزاي ليه كان كايا
لكن فيري إن أنت هرمر من ولا بقول كيف باليمان وأنا نقدر هرمر ما زي على طول نقرأ حبض إذا في أسمه هذا والدفاع السويسرا أي رجال لما بيفكروا لما ولا يفكروا يعني حقيقة غير هيا عبد الشيء اسمعوا السلام رمني يتكسب كرسم اسمعوا وحي ديال غافك برنامج وجران عبد الشيء وزير سوفر يسوق بالغاف معها تعرف مالك حبدا في بلاد كبيرة مان حاجة عثمان بيكتشف بعد عبد الله قالنا أنا أفكر إن الشعب كبير الدولة هل حبدا حدود إلى الموسوعي عثمان مسيح الكرا سيد السياسيين كرا وقول كانوا ككلا ولياس بدل دراسة جديد برنامج تلك إلى رب العالمين فصوت هكذا حنطلق قالوا يا حبنا كأسرة كل الأمين النتيجة ضرب السنة كفرة أو قلتالها قوة وين هرجفها إلا قوة وغيرية حدنا أو ما إيرين حدنا نبكي أولاريها إذن كان حبنا اللحظة عليها وجلمي وجلمي ضد جلمي جلمي كل حبنا سؤال إسماعيل كتبا قال يا إسماعيل شيء بقوله وأنا المعالج ذلك المكلة تغاني نفس ذلك أنا حمرها الناس أنه غير بأنهاي وياسا يمد الزيارة وياسا نوم العالم حبتنا كتشوك وياسا الموكل إننا سياسيين المعمول لها هنا وشع المكهرين وفي أفكار عن السؤال إنه وأنا ياسا نرد أيضا الزيار نباع بدل السياسيين بأن السجرة فصل لم الزيار النهاية لكن كانت دونان تشوك وياسا السيد ملعيين كم حكمائية مرة الكرام إذا كان هذا يسير اسمع الماشي ويديك إذا كان الماشي وكبر الهاي بدلت إليك تسيسي هاي فرق شنو الهاي سودي جاء عمامي الجيل بس تبع المرضى الجاري هاي لكن بالقرى الأساسية إذا ما يعرف كلام هذا مش إذا ما يجيب إليك كتير كوريا دولار ويا العثمان بلغيها با إن بشيد سida cabdishid soo jeediyay inaad ciidamadan meesha ka saartaan bal shafshalana ugu dayba la yiri oo odayaasha cabdishid iyo Puntland ay ku dhagan yihiin horta in la tijaabiyo idan xabad la isku ridin bal in la tijaabiyo xabada la joojiyo odayaashana bal isu dir haday saf garan waayaan siyaasad baa loo gudbo markaas أنا أتوقع عن الجنسية هذا الوجود الجديد عندنا مكاننا من مكانين لكن هذا أنا أقول هذا قالوا waxyaalahaas jira maanta cid walba oo maanta Soomaaliya ay tahay ama reer mudug u yihiin ama billahi reer u yihiin waa in meesha laga ciidan karo abada ciidana isbarka dhisan jeesina halayna aniga meelay ku taalo iyo cid taqaanaan hal oray iyo hal siyaasi iyo qof walba oo qadiyadaas maanta taagan wax ka gadaalay ana xilligeeda gaarayna ما هم إن الجماعة اللي يخرجون تكتب ومنه خطر الماء حقيقة وحياتها تاريخ الصغار من الصحيح أنا إنسان كريم حبيت بالدعاء كل على غصة وأي لا حبنا في الجميع لك الكلام ولا إيمان يقولون إتقلد يا سيدنا لو بهالي ترى لقنا بهالي ترى هي يا من بيعبو إن كده المنبوذ سواء خطر الماء خطر الماء قد يبدأ لنا هالليل قال عيونك كامل فما هي قال عيون أنت اللي عندك دماغي وحياة يجي يقول لك على قلبي قال أقول أنت تعبير هاي أنا قلت ما أنت مستوى يا كارم شو ده كارم أنت جارا فأنا هناك ينمط كتة ولا أشوف ولا من رأيهم ترى كتة أنا قلبي أعرف فيه ما يتقول أسمع إذا ما رأيت لقانه غير جل من المسلمين كذا لقانه عرف كذا إذا قلبي كذا استراحة ما هو البهذا تسمع الله يدربنا يعني أنا إسمع الدماغ أنا أرد ما جدّي وعن كلامها أنا إنه ولا أنا عملنا كثير من مديرين الرئاسة مديرين هذا مديرين لكن عارف هذا المنطقة لأن كل جدنا أيضا أمريكاني أيضا أمريكا كارنو أيضا أمريكا بدنا هذا إذا تخيري تعالي قال مثلا يكمل إمام يكان ما هم عرف يا هذا قال تعالي هذا من تستوقي البري ومثل جوانا أمي فيها أمي في جوانا
نجد في كل الجماعات اللي بتسأل عنها عن نقول لك وما في ذلك في سؤال في نبرة يا إن دتك واحد يا أي تقدمين تعمل كذا مرجع على نسيني معنا كمان بايه وما يزاد عيسى وما يصب عيسى وهدي ويانا ولا سأل ماي ورقد ما أنت قد جدا كيف خالص اللي بديه ولا يجوز على هذا ودك على المسلم كله ودك على المثل ودك على السلام يا ملذ أكاد عليه يعني الحبارة يقول لك تقدر هذا تعريف أنا بدي ويا عندي سؤال ويدي سؤال لما إذا بكويدين يا ترى ويدي idinku diyaar mooti inaad tanasushaan oo hadday ku adkaystaan dhinaca siyaasadda loo wada hadlo in xabadda la joojiyo idinku bal aad aqbashaan dhinaca galmudug ay rabto oo ah siyaasadda lagu wada hadlo maadaama ay dhaqanka ka soo jeedaan marka ismaan xabadda ay joojiyo su'aal ish ana xabadda horana ilaa ma jidin hadda la jidin may waxa markaasi maanta waa la doonaa shay xabadda weyn haddii soo bixi jidin haddii san la tanbay ay joojiyo waa taagnaane xabadda jeedinta shaqashada ismaan baa oday waxaan ballan qaadaynaa haddii soo bixi naafidi laakiin haddii soo rido istifaacay taasi waa midda kale wada hadalka iyo doodda haddayaan horumar lahayn doodda camal ay noqonay waxaan aada u codsanayna raadiyo dalka ka codsanayna wada hadalka ismaanaya aniga hadda awodna wax horumara marka aan joojina halkaa udayno lama oday baan nahay intaa ka badan kaniyo iskuma wadi karna gulmidaa ku jirta marka waxaan oran lahaa dooda aan la joojiyo halkaa loo daayo maadaama waxaan baraa waayahay wasiir cismaan baan filayaa wasiir bulshadii ama shacabkii gobolka mudug iminka magaalada gaarkaayo gaar ahaan waxa ay dhooban yihiin barnaamijyada magaalada qaybo badan oo ka mid ah roobab iyo qorax iyo dayacna waa jiraan sidee u malaynaysaa adigu hadda in dadkaas lagu soo celin karo oo magaaladii nabad looga dhigi karo oo magaalada gaarka looga saari karo colaadda ra'yigaaga waa talada dhinacii talada walaalo ma santahay taas hore u sheegay shacabkaas xaqiiqda aniga haddii waqooyinkooda iyo koonfurtoodaba aad iyo aad baan uga xumahay xaqiiqdii waan uga daacad waxaan ku doona xaajoonaya maahan alaabta maqaanaa dhibaatay leedahay aad iyo aad baan uga xumahay shacabka banaanka waxaan rajaynaynaa ilaahay in laga baxo goor noqotada ilaahayna waxaa khayrkana rajaynaynaa waxaas leedahay dhibaatada maanta ka jirta puntland galmudug ama ka jirta gobolka mudug mas-uuliyiinta puntland aan isleeyahay doorkay lahaayeen inay ka caranayaan ama ma saalan karaan mas-uul sabta iyagaas in anigu dawlad kasto aanan shacabkayga matalayayo aad iyo aad taqadamada xaqiiqi waxa maanta taagan waxaa soo haray walaalow waan soo kala ficilin hadda la ficilina kooda waxaa xabadda la keesiyo لكن عبد الجيش هذا حلو هذا لكن سيد عبد الشهور بلغ قاضيين حبض لي وتشوتين حتى لما تنبر قاته إذا كنا نحن بلغ قاضيين هل حبض مسور دين ما بلغ قاضي عبد الشهور بلغ قاضي النبي بيه أنا ما إذا ما إنكرت بيوم حبض هات يلا تحكي من حبض ولا أفر كنا بلغ قاضي ترى عبد الشهور بلغ dadku dhageysanay عبد الشهور بلغ قاضي أظن بلغ قاضي عبد الشهور بلغ قاضي أنا بدي أقول أنا ما قصدت قبل إذا أنا حبيت كنت في اللغة واقعين وإن لك هذا اللغة واقعين الفرصة بيا ومدة تقول أنا حبيت انتفاع حبيت تفهم غير يعدوني فهو عن كهني ونوع عند كفر أزمان فهو عن غير كفر فهو عن غير كفر ده عبد الشهور مين أنا عيله هذا هو هذا يعني عبد الشهور اسمه توهيد يسوع هو إيش تعرف غندا ولكن أنا أتصل الله إيش بلغ قال كذا أنا ما بلغ قال كذا شنو بلغ قال كذا الحين اللي سوى العرب الجديد فمحل جاي ما أنا بقول واي أدوم ما صنته إن بيكون حق قد بين قبل برنامج كيلو ركسودو ده واحد ربع إن هل سؤال أنا كور بس ونده دقوا إن عبد الرشيد إن وديش ده إن مقالة قال كاي دباتة كتاعن شعب كينا والظلمين أو دباتسين قرعسي وديش ده ماشي عمره مقالة مال بحبط بالهدعية سبب عمره لسه إن أرنتان لوكل بدبادكر أو ضدك كضيع عن بناك اللي يسوع ينكر أو ضدك دجاج اللي يسوع ينكر waxaa nin waalan baa reer arrintii ka yimi diindihii ka diray wadadihii ka jaray oo sankii diiday oo
في عروسة بلاوي مش هوشة تشتر بوسكي وهي حاجات عروسة ما إلى غلط إلى كرة يبقى إلى ربع سنة اسمها نركا ده هذا الدين ده فريق يوم راح تشوف إذا كبد أنت يدفعهم من دروها هي ما لكن شعب كان مساكين كده اللي يفرح له أودين الصور الغدان وحب الله قال إن أنا حبيت كل يوم حب الله قال إن أنا مبتدأ ممكن نريد هو سوء إكله وكيف غير إنسان مجد وتصال كالموضوع الأب إسمان قالوش يسكدي لا يتوقع نصار سر من مجد لكن عن إسمان إشيلية فإذا الرائنا إجد لا أرى حسنا سومالي هذا حنكر إنه بدل من سوء عن العالمين سومالي كما كما قفصان كرقابين كلاه فكر يارنا الطبيعي فرحة لنا أقول إننا إن وضعها عدي على الإجلال هذا وما سنسي وايا وضمينتي اسمان عنسي وضمينتي وسواش وضميسا اسمان سداء واركتا إن ما أنت حلوار لوغا قاري كرا مقالة قال خاي يقودان بقبل كمدو أراد سعطرة إمك أي كل ما كرسو ولبدا معمولنا أي أوضا شغي كريان والله ما كنت هاخد دور مرة وكو عليين هذا نوع هذا أنا كو عليين يرت أنا على هذه أجار الله هذا نوع عبد العزيز قتله بترو أكتب بالعلم طبعا بيت طبعا مع أول العلام وهو البنا كمان أيام أنا عرب قال كلام مغلو اسمه لنا مغلو مد جيران كان مغلو ثم أنا ملام أكيد معقول بس إنه جاء والله على وقت كنت ألام وقت أنا بيان تعب هو كذا مرة هم تعرف أنا أقول كنا وحاها حب إيه أنا فرصة يجزع كتير كتير بالعرب حبيت دوران بلان غابة يعني سوتني يا أنا حل إيه اليدي طبعا أنا عم بتمين بالله كوعم بعين بيان تعب يقي أنا بتعب في القيامة يعني حضر الله تعب المدة لقات بل كان مسلمين أنا ما بتعب جيد مثلا مرنا شباب كله فرنو مرنا قرآن كله فرنو ما يتعرض ما يتعرض وإن هذا مسؤولية بين وسهمه وإن ذاتك محل وعرق كأنه فإن كان بيارنا الدولة الهام يكسع العام بيارنا ولكن يقول عرضه تجا معلمة أبيات بالرعية معلمة أبيات حرية معلمة ثلاثة إديلية معلمة أسوأ رصغيرية يقول عرضان أنا مرة قرابة نظام تعبدولي يدود عبدولي بس كان قال عايز كذا صبت بس أنا ما قبل هذا مرجع له كذا كان كذا مركي والله أنا أركي وشو يعني كذا ما تبغى صار المسلمين بس كان ما قال كلام أنصح أنا إذا ما كنت ويا السؤال شاس قبل قولي ويا هي عبد الشيء أنا قبل قبل هذه هذا وشوف ما أنا أنت تعيش ما حصادوا نقيقة ولا رشد اللي تيسكا ولا هنشد مدانو ولا ما حصادوا نقيقة ولا رشد اللي تيسكا ولا هنشد مدانو